dowladniman u taagna dowladniman u taagnahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال waxaad ku soo dhawaataan xog ku saabsan oo aan ka diyaarinay ciidamada haramcad ee dawladda federaalka Soomaaliya ciidanka haramcad oo ka tirsan ciidanka booliiska dawladda federaalka Soomaaliya ayaa la aasaasay markii uu xukunka qabtay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo waana ciidan si gaar ah loogu tababaray ka hortagga rabshadaha iyo dagaalada ka dhaca magaalooyinka ciidankan oo tiro ahaan lagu qiyaasay 1000 askari ayaa waxaa tababaray dawladda Turkiga oo gudaha dalkeeda u qaada halka qaarka kale ay tababarka ay ku qaataan xerada Turkisom ee Muqdisho inta badan hubka ay wataan ayaa ah mid fudud waxaana ay u carbisan yihiin shiishka iyo howlgallada qorsheysan ee lagu qaado goobaha loogu talagalay ama ay rabshadaha ay ka dhaceen tuutaha ay wataan askarta haramcad ayaa ah mid ka duwan ciidamada kale ee booliska waxaana intooda badan ay horay ugu tirsanaayeen ciidanka nabad sugidda ee NISA sida ay warbaahinta ay u sheegeen saraakiil hore oo ka tirsanaa hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA ciidankan oo waayihii dambe soo shaabaxay ayay dad badan dawladda ku dhaliileen inay u adeegsato dana siyaasadeed cududda ciidamadan loo baahnaa in loo adeegsado dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ciidanka haramcad ayaa sidoo kale qayb ka ahaa oo ciidamadii la geeyay magaalada Baydhabo xilligii doorashada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa sidoo kale loo daabulay qayb ka mid ah gobolka Gadow ciidanka haramcad ayaa u badan dhalinyaro waxayna taliyo u ah wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Farxaan Maxamuud Qaroole oo ah dhalinyaro sidoo kale ciidamada haramcad waxay qayb ka ahaayeen ciidamadii aan sunno kula dagaalamay magaalada Dhuusamareeb isla markaana xerada Inji ee ku taala magaalada Dhuusamareeb halkaas ka saaray ciidamadii ka amar qaadanayay aan sunno wal jamiica haramcad oo dhawaanba soo ifbaxay ayaa waxa dawladda federaalka Soomaaliya ay sheegtay inay yihiin dhalinyaro Soomaaliyeed isla markaana u carbisan inay difaacaan wadankooda daawadayaal waxaan intaas ku soo afmeerinaa qaybtii koowaad oo aan ka diyaarnay ciidamada haramcad waxaan halkan idinkala socodsiin doonaa qaybo kale oo ku saabsan ciidamada haramcad waxaan dhageystayaal daawadayaal adikana idinka codsaynaa inaad subscribe like share aad jirahaan muuqaaladan halkan soo gelino si asxaabta kale ay xiiseysay u gaaraan aad ayaad